qof kastoo bini aadana waxa uu jecel yahay inuu ka guulgaadho ahdaafta madaxiisa ka guuxaysa laakiin dadka badankoodu waa ku guul daraystaan oo ay ku khasaaraan haddaba muuqaalkan waxaan kugula wadaagayaa 6 qodob oo runtii aad u muhiim ah oo aan isleeyahay qofkii tallaabooyinka raaca oo ku guuleysanayaa ahdaafta uu nolosha ka leeyahay taana kula wadaagin waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto follow iyo subscribe-na aad na siiso si aan saaxiibo u noqono qodobka koowaad waxa weeye caddee hadafka aad nolosha ka leedahay qofku nolosha waxbuu ku fiican yahay xiiseeyaa naftiisu aad ugu jajaban tahay ama teedna uu haya halkii shay aadan naftaadu jeclayn aad ku khasbi lahayd shayga aad jeceshahay aad ka soo dhalaalaysid ayaa la rabaa ahdaaf ahaan aad u dejisatid qodobka labaad waxa weeye markaad ahdaafta dejisato tallaabooyinkii iyo istaraatiijiyadii aad u raaci lahaydna waa inaad iyana meesha ku soo dartaa mid bil ah mid usbuuc ah mid sanad ah iyo mid 5 sano ah qodobka saddexaad ee isaguna muhiimka ah waxa weeyaan waqti shayga isaga u hur shaygan aad jeceshahay inaad nolosha ka yool gaadho tusaale waxaad rabtaa inaad caafimaadka barato waa inaad 7 sano jaamacada aad u soo fadhidaa waqtigeeda aad hurtaa filliga aad rabtid hadduu dhantiis yahay ama waxa weeyaan indhaha yahayna sidaas la mid ah waa inaad isna waqti u hurtaa shay kastoo jeceshahayna waa sidaas la mid ah ninkii carbeed oo xikmadda badnaana waxa uu yiri man talaba al-ula sahara al-layali qofkii meel sare tiigsanaya habeenimo u soo jeeda qodobka afraad waxa weeye consistency la imow ama joogtayn shaygan aad baranaysid ama aad ka shaqaynaysid hadduu ganacsi yahayna waa in aad joogtaysaa oo maalin kasta si dheeli aad u qabataa si usbuucle aad u qabataa oo aadan ka caajisin qodobka shanaad waxa weeyaan dulqaad la imow ama patience yeelo haddii aan dulqaad yeelan runtii nolosha wax hadafa oo aad ka xaqiijinaysaa ma jiraan dulqaadku runtii waa qodob aad u muhiim ah waa qodobka keenaya in bini aadanka dantu kaala dhaxayso adanahaaga ka fushato naftaada laftarkeedana aad xakamayso caqabado badan oo ka hor iman lahaana aad ka hortagto qodobka lixaad ee aadka u muhiimka ah ee ugu muhiimsan waxa weeye rabbi tala saaro koonkan rabbi subxaanahu wa ta'ala ayaa maamula isaga ayuu gacantiisa ku jira waa inaad isaga ku xirnaataa tala saarataa waxa weeyaan shaqo kastood qabanaysidna inuu isagu kuu fududeeyo aad weydiisataa haddaba haddii aad garanayso qodobo kale runtii aad u muhiima waan ilaaway qaybta commentiga noogu soo qor aad baa u mahadsantahay